السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسن أصحابي ملكستو أتوقتان وصباح نمو خميسة تاريخ دونا يكون بيغان تاهي ساقالكا بيشا أكتوبر سنة كالاباكون يشان يالاباتن برنامج كينا صباح نمو ساكي غور هوري أيان سوغالني سببتنا محاي تاهي ور عصب أياجرة شركي شرم الشيخ أولا شيغي إن هشيس لغو صحيحي dagaalka Gaza lagu soo afjarayo laakiin heshiisku qaybta la saxeexay waxa la yiraahdaa qaybta hore qaybta dambe ee dhiman maxay tahay Israa'iil maxay sameyn doontaa Hamas maxay ka yiraahdeen Donald Trump muxuu ka yiri dawladihii dhexdhexaadintu maxay ka yiraahdeen wixii laga qoray oo dhan heshiiskan ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa kadibna waxaynu eegi doonaa falanqeeyayaasha heshiiskan la gaaray waxa ay ka yiraahdeen haday tahay danta ugu jirta reer Gaza iyo Israa'iil waxa laga filan karo hadaba tafaasiishaas oo dhameystiran oo warbaahintu ay caawa dhan ka hadlayeen ayaynu saaki barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa inta aan ku jirno warar cusub haday soo kordhaan asxaabsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo hadaba barnaamijkeena saakay oo ah subaxnimo khamiis ah waxaynu ku soo qaadanaynaa war farxad leh reer Gaza marka loo eego dhibaatadii ay ku jireen mushkiladii labada sano ay soo mareen waa midaan ugu ducaynayna in Ilaahay uu dhibaatada ka saaro hadaba Ilaahay run uga dhig ayaan leenahay reer Gaza inay dhibka ka baxaan oo ay dawlad yeeshaan Ilaahay runta uga dhig adikuna u duceey hadaba sidaad la socoteen maalmihii la soo dhaafay waxaan halkan idinkaga soo gudbinayay in uu shirka socday magaalada la yiraahdo Sharm el-Sheikh ee dalka Masar shirkaas jilbaha la soo aastay waa tii barnaamijkii ugu dambeeyay aan soo gudbiyay shalay galab xalay inkastoo barnaamij aan soo gudbin oo xogaan mashquulay marka barnaamijkii shalay galab waxaan ku soo qaatay rajadu inay xogaa wanaagsan tahay in heshiis la gaaro laga yaabo hadaba xalay waxa la gaaray waqti dambe heshiis waxa ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in heshiis la gaaray hadaba saan hore idinku sheegay marka hore niyuusadii la qoray aan akhrino kadibna falanqaynta si aynu u fahamno heshiiskani muxuu yahay hadaba madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu ku dhawaaqay inuu yiri heshiis ayaa laga gaaray dhamaynta dagaalka ka soconaya Gaza hadaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu si rasmi ah xalay ugu dhawaaqay in la saxiixay heshiiska xarakada Hamas iyo Israa'iil kaasoo lagu sheegay inuu yahay al-marxalatu al-ula ama marxaladii koobaad heshiis dhowr qaybood ka kooban in qaybtii koobaad hadda lagu heshiiyay qaybtaasna ay horseedi doonto inuu joogsado dagaalka maxaabiista dhinacyadana la isdhaafsado intaas ayuu sheegay ninkii ahaa Donald Trump marka Donald Trump marka wuxuu yiri heshiiskaas la gaaray aniguna toddobaadka soo socda ayaa la filayaa inaan u ambabaxo gobolka si marka uu isugu muujiyo inuu isagu ahaa ninkii hormuudka u ahaa heshiiska la gaaray waayahay laftirkiisu marka waxa leeyahay odaga maalinta jimcaha dhakhtar u balansano waa la baaraya odaga iska xanuunsan laftirkiisu laakiin waxa leeyahay axadda ilaa sabtida laga yaabay inuu midkood u safro gobolka bariga dhexe hadaba marka wararkii ugu dambeeyay heshiiska anoo faahfaahintiisa gali doona Trump waa soo aragnay muxuu yiri qaybtii hore ayaa lagu heshiiyay qayb dambaa dhiman marka sida qaybuhu kala yihiin iyo qaybtan hore lagu heshiiyay ayaan marka falanqayn doona laakiin marka hore wararka say isaga soo daba dhacayaan hadaan idin dul maro waxa la sheegayaa in مسؤول مريكنا وكل واقعي
in ciidamada Israa'iil ay ka bixi doonaan Gaza taasoo markaa la sheegay marka inay qaadan doonto 24 saacadood. shabakada ABC ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay soo xigatay mas'uul ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka wuxuu sheegay ka bixidda Israa'iil inay tagto xadkii lagu heshiiyay ee Gaza inay qaadanayso wax ka yar 24 saacadood. haddaba dhanka kale waxaa la sheegay reer Gaza inay xalay markii ay maqleen khabarkaas ay dabaaldegeen oo markaa ay u dabaaldegayaan heshiiska lagu dhameynayo dagaalka. waxaa muuqanayay fiidiyoyo iyo sawirro reer Gaza laga soo duubay iyagoo xilliga saqda dhexe u soo baxay shawaarica ama wadooyinka u soo baxay oo qaylinaya. xukuumadda Netanyahu ayaa iyaduna waxaa la sheegay inay kulmayaan maanta oo Khamiis ah si ay u meel mariyaan heshiiska. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo Khamiis ah la sheegay inuu kulmin doono golihiisa wasiirada iyadoo markaa la sheegay inay ansixin doonaan heshiiska lagu dhawaaqay ee ka soo yeeray Sharm el-Sheikh. dhanka kale mas'uul Mareykan ah ayaa wuxuu sheegay dagaalkii Gaza inuu dhamaaday. kanaalka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa lagu sheegay in mas'uul Mareykan ah uu sheegay dagaalka hadda in lagu heshiiyay mabda ahaan in la dhameeyo dagaalka. haddaba iyadoo arrinka ay jirtay ayaa xalay diyaaradaha dagaalka Israa'iil iyaguna waxa ay dhowr mar duqeeyeen ilaa aroortii saakayba magaalada Gaza ayay duqeeyeen. Hamas oo war ka soo saartay heshiiska la gaaray. Hamas waxay sheegtay heshiiska la gaaray inuu markaa yahay mid dhameynaya dagaalka. xarakada muqaawamada islaamiga Hamas waxay sheegtay in heshiiskan uu yahay mid dagaalka lagu soo afmeerayo Israa'iilna ay ka baxayso Gaza gargaarkana la gelin doono Gaza maxaabiistana la isdhaafsan doono. waxay u mahad celiyeen dowladaha Qatar iyo Masar iyo Turkiga dadaalka ay sheegeen ay markaa ku bixiyeen arintan iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dhanka kale waxaa la sheegayaa in Trump ay ugu baaqeen dhinacyada Trump iyo dowladaha Carabta iyo Islaamka Hamas waxay ugu baaqaysaa in Israa'iil ay taqaano oo markaa ay bilaabi doonaan iska daba wareeg laakiin ay tahay in heshiiska si dhab ah loo meel mariyo. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid al-Ansari ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay in markaa heshiiskan uu yahay mid lagu soo afjarayo oo lagu joojinayo dagaalka ka socda Gaza maxaabiista dhinacyada kala duwan Israa'iil iyo Falastiinna la isku dhaafsan doono gargaarkana la gelin doono sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar. dhanka kale waxaa la sheegay mas'uuliyiin Israa'iiliyiin inay sheegeen in heshiiska la saxiixayo oo markaa hawshiisu ay dhamaatay qaybta ugu horeysa heshiiska. haddaba heshiiskan waxaa la sheegayaa inuu yahay mid markaasi wax weyn ka tari doona rajada shacabka reer Gaza. waaye marka intaynaan u gudbin ayaa waxaan jecelahay marka hore inaan idiin soo gudbiyo sawirro laga soo qaaday marka wada hadalladu siday u socdeen. marka wada hadallada sida idiin muuqata sawirka ugu horeeya ee halkan ka muuqda waa wafdiga Turkiga ah ee shirka fadhiya. waxaa fadhiya madaxa sirdoonka Turkiga oo markaa kulamada ka qayb galaya. waataan barnaamijyadeedii hore idinku sheegay. haddaba sawirradana waa madaxa wada hadallada Hamas iyo muqaawamada kale oo iyaguna halkan fadhiya Khaliil al-Hayya iyo ragiisha. dhankan kalena waa sawir kale oo laga qaaday mar kale ra'iisul wasaaraha Qatar iyo mas'uuliyiin kale oo iyaguna markaa goobta shirka uu ka dhacayay iyaguna ku sugnaa. waaye marka heshiiska marka la saxiixay muxuu yahay? heshiiska waxaa la yiraahdaa marxalatul uula.
marxaladda hore. marxaladda koowaad marka waxa waaye maxaabiistii in la isdhaafsado kow iyo Israa'iil inay ka baxdo Gaza. marxaladda labaad waxaa laga hadlayaa maamulkii Gaza maamuli lahaa. Hamas hubka maamulka ay ku wareejinayso way sheegtay in maamul Falastiin uu noqdo Carabta iyo dowladda Islaamka iyo Turkiga iyaguna saasay rabaan. waatii barnaamijyadeedii shalay Erdogan uu si rasmi ah u sheegay uu yiri inaan Falastiin ay meeshaan ma xukumayso. marka waa tan marka maamul Falastiin ah Masarna hawshaas way tababartay rag booliis Falastiiniyiin ay wixii oo dhan marka in meeshaan la maamulo. Trump iyo ragiisuna waxay wataan Trump waa mid uu yiri anaa kor ka xukumaya waxa ay ugu xigi doona Tony Blair ra'iisul wasaarihii hore Ingiriis. qorshahaas marka ayaan ku wadaynaa hawsha. Israa'iilna waa mid ay lahayd wax Falastiina oo meesha ku soo dhawaan kara male. marka wareegan hore orta dagaalka in la joojiyo gargaarna la geliyo u fiirso. hadda 3 qodob lagu heshiiyay in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Gaza oo meelo mucayan ay tagaan oo laga saaro magaalada meelo badan ka baxaan. labo in maartay maxaabiista dhinacyadu is dhaafsadaan. 3 in gargaarka la geliyo. intaas horta markii la helo oo dadku salka dhigtaan oo xabadda laga joojiyo ayaa wada hadalkan kale marka loo gudbi doonaa. ilaa 3 qaybood ay warbaahinta qaar leeyihiin ayaa wada hadallada loo kala saaray. marka saas horta inaad u fahamtaan waaye qayb horaa dhamaatay oo lagu heshiiyay 3 qaybood lagu heshiiyay waa mid ay leedahay Hamas. Trump iyo dowladaha Carabta Islaamka waxaan u sheegaynaa annaga nimankan waa naqaanaa Yuhuudda way dhibaato badan iska daba wareeg badan. marka waa in si dhaba heshiiska qodobadiisa loo raacaa loo dhammaystiraa. laakiin inta maxaabiistooda la siiyo haddana haday nagu soo kala firiyaan ayuu taalaa. marka hadda xalay waxa leeyahay marka Turkiga iyo Mareykanka ayaa qol isku xirtay. wafdigii Turkiga ahaa iyo kii Mareykanka waxa la yiri dhageyst nimankanu yaa damaanad qaaday. Trump iyo kooxdiisu waxay yiraahdeen annaga ka mas'uul. Turkiga wuxuu yiri aniga anaa ka mas'uul Hamas. wixii ka dhiman heshiiska in la dhammaystiro adiguna soo dhammaystira sida aan ku wadno dagaalkan aan joojino. warkaas iyaguna warbaahinta qaar ayaa ka hadlaysa. marka macluumaadkaas oo dhan marka waa arkaysaan halka ay wax marayaan. haddaba marka qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyaguna soo kordhay inta aan barnaamijka ku kastoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo. saaki waa Khamiis taariikhduna waa 9 Oktoobar. haddaba qaybahan waa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay. haddaba markaan ka hormarno waxa leeyahay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa la sheegay inuu ku baaqay in la laazimo si dhammaystiran waliba heshiiska Gaza lagu gaaray. wuxuu ku baaqay dhinacyada arinkaasi wax ka gala inay ka shaqeeyaan sidii qodobada heshiiska loo sii dhammaystiri lahaa oo heshiis kaamil ah looga dhigi lahaa maadaama hadda qayb la isku ogolaaday. haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa in Netanyahu uu markaa ugu baaqay ama ka codsaday Trump inuu khudbad ka jeediyo baarlamaanka Israa'iil ee la yiraahdo Knesset. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in markaa Benjamin Netanyahu in markaasi uu doonayo wada hadallo inuu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump heshiiska kadib oo markaa sidii dagaalka Gaza loo dhamayn lahaa. Netanyahu wuxuu ku baaqay Trump inuu khudbad u jeediyo Knessetka marka uu Israa'iil soo booqdo. dhanka kale mas'uul Mareykan ayaa wuxuu sheegay in markaa madaxweynaha Mareykanku uu ku wajahan yahay gobolka uuna tagi doono Israa'iil. marka meelaha kalena wali lama sheegin uu leeyahay. marka ninkii Netanyahu ahaa culaysyada haysta darteed uu rafanaya. wuxuu leeyahay Trump uu markaa timaadid Knessetka waa baarlamaanka si aan loogu kicin khudbad u jeediyo adiga ka codso in heshiiska la meel mariyo. macnaha isagu waxba kama gadi karo. golihii wasiirada Ben Gvir iyo ragiisana way sugayaan
oo macnaha maantay sugayaan iyaguna markii golaha wasiirada isugu keeno marka hadda kubadda waxay taalaa dhanka Israa'iil Xamaas iyo muqaawamadii way ka soo gudubtay cidda baarlamaankeeda iyo wasiiradeeda iyo dib ugu laabanaysa waa Israa'iil marka hadda Trump shaqa u taala iyo kooxdiisa in Israa'iil golaheeda wasiirada iyo baarlamaankeeda iyo waxa dhan inay ogolaadaan waa midda uu leeyahay ninka Netanyahu leeyahay naga soo gaareen oo imaa baarlamaanka la hadal marka heshiiska la gaaray marka waa heshiis noocaas ah hal qayb la gaaray qaybihii kale ee muhiimka ahaa mustaqbalka Gaza hubka dhigista Xamaas cidda hubka loo dhiibayo alaabtii ugu cusleedo jilba aasadka dhiban marka waa arki doonaa kullay wixii warar ka soo kordha xaalku halkaas uu maraya barnaamijkayga subaxnimo saakay oo aan waqti hore soo galnay arintan darteed inta ayaynu ku soo gabagabeynaa bal adikuna fakari aragti noo soo qora wixii ay idin la tahay inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan nabadgelyo